hortiga maam Khadiijo iyo Cabdidaanto arintooda ka hadlaynay iyo xaaladii dhacday iyo buuqa social media labadan maalin ka taagnaa aad iyo aad horta Soomaaliya qabiil ka fiican ma jiro xaqiiqda dhabteed Soomaaliya oo dhan nin walba qumnihiisa qorto ku jiro xaqiiqda waa inay ogaataan qof walba oo Soomaaliyeed waxa qumnihiisa ayaa qorto ku jirto nin walba wuxuu soo haystaa inuu laandheeray waana run qof walbana laandheeray way ilaahay bili aadanka waa karaamay marka Cabdidaanto ma sha Allah iyo wasiirada dad caayayaan arko far badan ama qabiil u bursanaya ama reer u bursanayaan arkay waan cambaareenaya ku diiw waxaan u cambaareenayaa in hooyo Soomaaliyeed hadda daahir aan arkay kaleeto daahir calasow hooyo Soomaaliyeed in la aflagaadeeyo oo la caayo waa ceeb weey waana hooyada oo kaleeto ka soo qaadaa weey oo tiraahda qofkan dumarka walaasha am hooyada kaleeto waana ku mitaasha macna misaal ahaan uga soo qaad inaad ma garanaysaa daliil kartaa oo xilkeeda iyo ma garanaysaa positionka ay ku fadhido waa ku daliil kartaa laakiin aysid waa ceeb weey ma aniga taam soo dhaweynay okay hadalka marka dibka keenayo aad iyo dibka u keenayo waxa weeye waa laba hadal weey hadal ka soo yeeray fanaanka oo soo live ku jiro uu yiri iyo hadalka maamada way ku tiri la yiri ya horta labada arin inaan gorfeena wanaagsan aad iyo aad anagoona cidna caayin aniguna wanaaga page-kayga oo soo gali waxa iri dadka wax garadka ee aqlu saaxiibka ah ma garanaysaa wanaaga jecel inay dadkan isu keenaan aad iyo raqabu ka daray waa very freezing outside banaanka yirista gudahana ma gali karo because dada jooga in ma garanaysaa dadka aqli u saaxiibka ah halkan yirista aqli u saaxiibka ah ma garanaysaa aqligooda uu shaqeynayo inay wiilkana u tagaan gabadhana u tagaan la yiraahdo bal shaydaanka iska naara oo ma garanaysaa shaydaanka iska naartaan bal isu imaada kala gar qaatay leeyahay anigu waa soo dhaweynay aad iyo aad marka labada arin u baahan haday iga go'ay telefoonka anigu aan rabo inaan kor istaago umadana ay fahantaan waxa weeye hadalka wiilka lagu yiri hadalka wiilka lagu yiri hadal muwaadin Soomaaliyeed u qalmo ma yahay that's the question in qof mas'uul ah oo waliba wasiir ah haddana uu jooga meesha ra'iisul wasaarihi xukuumadda dalka Soomaaliya oo wiilka Raas Caseer iyo wiilka Raas Kamboni iyo wiilka Jigjigo iyo wiilka Gaarisa iyo wiilka Hargeysa iyo wiilka Djibouti joogo ra'iisul wasaaraha waxa ama wasiirada wahayd in ma garanaysaa dadka la kala sarreeyo la dhaho wariyaa adigu kaalay waa dhaantaysaa dhaantaad qaadaa dhaantadana lagama qaado Muqdisho Soomaaliyana dhaantada lagama qaado orodo Jigjigo ku noqo oo ma garanaysaa Jigjiga ka dhaantee which means what korid way waa yasid way waxa weeye ethnic gooniye ama group gooniye ya macnaha lagu takooraya inay Jigjiga degan yihiin ma garanaysaa ay dhaanteeyaan oo dhaantada dirgaxda ay ciyaaraan ma garanaysaa dirgax ay ciyaaraan aad iyo inkastoo culture Soomaaliyeed uu yahay oo ummadda Soomaaliyeed dhan ay dhaantada ay tahay ma garanaysaa wax ka wada dhaxay oo qolo gooniye aan lagu takoori karin salaam lagu takoori karin ya meeshana ka jirta aad iyo qolo gooniye aan lagu takoori karin oo ay tahay culture ummadda Soomaaliyeed dhan ka dhaxay uu yahay okay hadalkaasi yaa u baahan in la gorfeeyo oo u gar ku yeelanayo wiilka asaga aad iyo aad ma sha Allah waa muwaadin Soomaaliyeed dalkan u dhashay xaqna u leh ama Gaarisa ka yimaado ama Jigjiga ka yimaado ama Djibouti ka yimaado ama Hargeysa ka yimaado ma hadal qof mas'uul ka soo yeer karo okay ta ugu dar marka xaaladda ugu dar waxa weeye waxa fadhiyay baa la yiri meesha oo joogay oo shirka ka qayb qaadanayay ra'iisul wasaaraha ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad anigu ra'iisul wasaarihiga aaminsanahay Cabdina inuu ra'iisul wasaarihiisa yahay buu aaminsan yahay wasiir maam Khadiijo waa wasiiradaydi weey dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan iyo Soomaali oo dhan borderka waxa dhinaca ka iyo waxa inta ku jiro labadaba ay wasiir u tahay dhageysta hadalka dhageysta okay hadalka kale ee qadafka ee khaladka waxa weeye in fanaan Soomaaliyeed dhageysta fanaan Soomaaliyeed oo indhihii bulshada ah oo caane oo la yaqaano oo la garanayo xanaaq waa bilaada waanba xanaaq kara aad iyo aad u gaari kara hiidka
إن ما قريساه هيدرا وبهرة نقولها سيركل ماشي جوا ميل فريزر وماينس مرنك عمي بها دقيقة هذه إن ما قريساه فنان صوماليات وعاني أو اللي يقانو أو اللي قرنا وإنتي بلشده إن أنتو أصلا ميديا سوفريستو إنه ما قريساه قبيل دن أم ضد دن أم إثنيك دن أو غير دن أسجنا إنه يرهدوان لا إذا يسا وان إذا كلان إيرس نهاي إيش إذا كلان إيرس نهاي أنا لان درء أصلا هو خردوي معناه قرت إلى هيبة قرا إن لوكال الشيء ضدكم قرس هذه إنه يرهدوان كلان إيرس نهاي ونن محانا هاي لان درء لان عليه وراء هاي سادرت المركة إن حراق بيجتن بدي وعموي مركة ولالك إن أبدان تصن عرفت بس وان مقرس ميل بنودجيا أوكي اسكوسو دومرك أنا وهدانا هاي مواطنين صومالي أنا وهدانا هاي شعب صومالي مرول بماها إن حمانتا بونينو مقرسة وأن كرقات قانو وأن مقرسة وحير أو وحبة هاي أن وحوين كدقنا وعموي أنا أرتاسي مسود ويني وحن أركيا أو أن أجدا ضد مسؤولين يا فنانين يا سياسيين أو أرنتا كوسي شوبية باسين يضب يعصبه كوسي شوبية سي أرنتا مقرسة أسي قرح هذه مرك وحال رامرك إن قلت هذا مرك هذا وحن أخرنا يمر ويتو أنت عن لايف سوقل مدنا أن عبد الدانتو وبيجي يسوق قروال يحربا بقيك استلام بيجي يسوق قري ولا يحربا أو يحربا أن إذا أي صادرتي وزيرته أي صادرتي أيام مقرسة يحرب وخلد يلا محركر ما خديجنا محركرته إذا بدأ بوليس الصوماليين محركران ميليتري الصوماليين محركرة صوبته هدي دعوة جرته أو ليس دعوين الرباط ليس دعويان لبض بوينا صلدقية التجان الدعوة سوقرتان محكمة الله تقول لك الجرق هذا ورها بالليرات أوكي لكن حتى كهر وحير بندي بقول نقولها وحن ما الأحداث الداوري هو الصوماليين وبلجم كده جوكتان وملانا يا ويل كذا ومقدسة جوجي يا وحا حرتي قبل وزير ذا ما قرر وزير حلك اسمه قانا يا حرتي ويقاتي وحرتي باليري وحبو السوشيال ميديا كوسو قري يا غريه يا هانتي وحكا خشي او ذا فاميل بيهان يا حبسي مدلح بلود وجري وحان داوده marka hooyadii oo Soomaaliyeed oo social media ka dhawaaqayso oo ooyis oo dhayso wiilkayga hal ii soo daaw wali wasiiradda leey waa idin raali gelinayna aadiyad raali gelin ku siinayna wiilkana loo soo daay aadiyad marka taas inay soo noqoto aniga ka digayaan oo duqbulo anoo si odaytinimo oo Soomaalnimo u hadlayo waan ka digayaa inaanan Cabdidaante ciidan loo diro la isku dayo in la xiro waa ceeb weyn fashil weyn ba waxa ku imaanayo maamulkii iyo dawladda jirtay waa fashil ku imaanay marka aadiyad marka dawladana waa jecelnahay aadiyad baa u jecelnahay وانا تاجرسنا وانا سي تاجر دونا أنا تقولون النبضين ولول بناهي وتجرّيس هذا سمكين شيء لكن وحرمنا مرك حقيقته إنا إيمان ورن بلا آذنك وخل دمان ورن وحقيقته بلا آذنك وخل دمان وخل دمان يا مالنكي بقول جر إلا بقول جر إنك بدل يقفك بلا آذنك وخلت كل عيا بقول جر إن كبر يقفك بالآذن كان مالنتي وخلط كل عيان مركب وحافي عمرك خلط كنا اسكوشي أتكينو وخلط كي مقرر سائل لقوشي تجناده وح بدن مسكرنيش هذا الكي قالوا لقيش وح بدن ومعنى مسكرنيش والوعبوبي وعب مسيس عن آذيات والدقنيت أنا ضبلو عن كم حين السوشيال ميديا عبد الدانتو وينو يماذا السوشيال ميديا هاو داونا يوم ملانيا عبدالانتو وانو تو سوشيال ميديا يماذا ان ويرهدو انيغو بلا ادم بانا هاي وان خلدمي عيل با مقرس حناق waxay gaarsiiyay wax la igu sameeyay marka saa darteed marka xanaaqas waxa hadaladaasi waa inuu raali gelin ka bixiyaa dhageysto hadaladaasi waa inuu raali gelin waa inuu ka bixiyaa waa inuu apologize qowmiyadaha marka Soomaaliyeed ama reerka gabadha ka dhalta haato ee uu shalayto social media dhan haystay inuu yiraahdo raal noqdo aadiyad asigana gartiisa la gala marka aadiyad okay ugu dambeyntii waxa ceeb noqonayso hadalkayga dhageyst waxa ceeb noqonayso oo waji gabax ee ku dhici doonto in
shir socday oo dhalinyarta Soomaaliyeed la isugu keenay wuxuu dooraa dhageysta hadalkayga shir dhalinyaro Soomaaliyeed la isugu keenay oo mashruuc wuxuu dooraba ha ahaado intii la isugu keenay dawladdii ay qidmaysay oo hool la sameeyay in ma garanaysaa dadkii arrinta intay u riyaaqeen sida Cabdi Dhaanto kaleeto intay u riyaaqeen soo labistay soo baxay aaminsanaa inuu dalkiisi joogo aaminsanaa in waxaan la qabanay dhalinyarnimada la sheegayo in asaga uu ka mid yahay aaminsanaa in wasiirad Soomaaliyeed hadalka wasiirad Soomaaliyeed ay tiraahdo waryaa stage-ka ha iga wasakheynina soo dogo ra'iisul wasaarihii dalka Soomaaliyeedna uu joogo uu fadhiyo dhageysta hadalkayga ra'iisul wasaarihii ummadda Soomaaliyeed waa mudane Xasan Cali Khayre uu fadhiyo uu meesha joogo oo protocolkiisii iyo la taliyaashiisii kama maqan way joogaan kulli waa meesha waxa anagoo Mareykan joogan na soo gaarsiiyay kulli dadkii hoolka joogay ayaguna waa ogaayeen hadalkayga aad dhageysta in ma garanaysaa muwaadin Soomaaliyeed lagu yiraahdo stage-ka ha wasakheyn inooga dab dhaantada dhaantaysidna kula noqo garanaysaa jigjigo waa offend way waa very scandal way wax scandal aad u xun way marka waxaan leenahay arrinta marka guddi loo xil saaro hal la dejiyo baaritaan hal la sameeyo muwaadiniinta uma qalmaan in ma garanaysaa la takoor muwaadiniintu in la kala sarreeyo muwaadiniintu inay ma garanaysaa dastuurka sameeyo muwaadin walba oo Soomaaliyeed dastuurka Soomaaliyeed akhrisid ku qoran tahay muwaadiniinta Soomaaliyeed qabiilka doonaan ha ka soo jeedaan ciiday doonaan ha ka soo jeedaan muwaadinka Soomaaliga ah ee diinigiisa uu Soomaali yahay dhageysta muwaadinka Soomaaliyeed ee diinigiisa Soomaali yahay way sameeyeen xuquuq siman buu dastuurka Soomaaliya siinaya marka meesha la isugu yimid shirka lagu qabanay dhalinyarada Soomaaliyeed la isugu keenay in qaarna la soo dhaweysto oo la weynaysiiyo whatever it is dhageysta la weynaysiiyo oo laga dhigo inay yihiin dhalinyaradii Soomaaliyeed laga dhigo in qaarna hadda sida fanaanka uu sheegayna fanaankan oo Soomaaliya oo ololeynay nabadii nolol ka mid ahaa oo nabadii nolol oo ololeynay dawladnimada iyo wanaageeda jeclaa la gacan bidixay dhageysta dalkeeda oo la yiraahdo macnaheedu waxay noqonaysaa adigu Soomaali mitid wa fahamso adigu Soomaali mitid that's what he feel because kuwa kale privilege kala siiyay suudadka soo xirtay ama fanaaniin ha ahaadaan ama si kale ha ahaadaan intii soo fariisteen suudadka xirtay ee fariistay laga dhaadhicin dhalinyaradi Soomaaliyeed yihiin muwaadinkan kale ee Soomaaliyeed asagana intuu soo labistay lagu yiri stage-ka inaga wasakheynin ordaantaa jigjig la aad lagu yiri waxa weey waa privilege waxba khaldan aad yaad cadaalad maaha wax la accept gareyn karana maaha wasiir Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaarihii Soomaaliyeed iyo madaxdii Soomaaliyeed meel joogan in muwaadin Soomaaliyeed saa lagu sameeyo waa yar ceeb weey marka waxaan ka digayaa on leeyahay ugu dambeynta ka sii baxaya ma sha Allah in muwaadiniinta Soomaaliyeed la soo muwaadiniinta Soomaaliyeed in la simo in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay mid yihiin madaxdana anaga noo shaqeeyaan maama Khadiija sheeysa public worker ana ii shaqeeysaa ogsoonow idna iga xafiiskeeda cid iga xigta male group gooriyo iskale male waa dastuurka Soomaaliya sidoo qoriya ku sheegay xafiiskaasi inuu yahay xafiiskii sportiska dhalinyarada Soomaaliyeed oo muwaadiniinta Soomaaliyeed leeyihiin cid ka xigta male hadii iska dhalada ay soo baxaan waxa waajib in baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya step in ay soo sameeyaan aadiya because xafiiska madaxweynaha xafiiska ra'iisul wasaaraha xafiiska wasiirada adigoo muwaadin Soomaaliyeed ayaa iska leh dadka waa shaqaalo weey waa shaqaalo adiga oo Soomaali ah ku shaqeeyo waana niyadaada mid la gelisiyo gaariga la xiyay muwaadinka Soomaaliyeed u shaqeeya waana ogsoon tahay ma aha inay ma garanaysaa qaar gooriye no that's u shaqeysan ma muwaadiniinta Soomaaliyeed oo dhan ba xafiiska iska leh
dastuurka Soomaaliya ku qoran tahay waa public worker way haddii power abuse kaasi oo xafiiska ra'iisul wasaaraha sameeyo ama xafiiska dhalinyarada sportska ee arinta ku dhaqaaqdo waxa weeye waa discrimination waxa loo baahan yahay in magaraysaa fargelin lagu sameeyo waxa loo baahan in baaritaan lagu sameeyo waxa weeye waa wax berita haddaad maanta adigu hebel oo reer ku taageertid berri aday ku qabsanaysaa Soomaaliya wad u baahan tahay iyo cid ku hadashaadiyad marka arintaasi haddii ay dhib tahay waa labada hadal anigu ka hadlo waa in baaritaan sax ah lagu sameeyaa waa in dabagal fiican lagu sameeyaa waa in transparency noqoto dawladdan anigu aan taageer institutionka taageerano duqbulo in wasaaraddan ay tahay public worker ummadda Soomaaliyeed u shaqeyso aniga ii shaqeyso adiga ku shaqeyso oo cidna aysan cid kale ka xigsan karin cidna cid kale aysan ku takoor karin yaan anigu magaraysaa aaminsan aadiyad marka hadda waxa ceeb noqonayso oo ku soo celcelinaya baatan waxa ceeb noqonayso in muwaadinka Soomaaliyeed lagu yiri stage-ka naga wasakheeynin stage-ka nooga dago dhaantadan iyo cajaladana la ordaysin orod ku noqo jigjigadii aad ka timid waxay ceeb ku noqonaysaa xafiiska ra'iisul wasaaraha fadhiya lagu yiri xafiiska ra'iisul wasaaraha ceeb ku noqonaysaa xafiiska waxay ceeb ku noqonaysaa magaraysaa dhalinyaradii sportska Soomaaliyeed ba ceeb ku noqonaysaa waxa dawladii waxay noqonaysaa dawlad la kala xigsanayo oo wixii muwaadiniinta Soomaaliyeed ay lahaayeen group gooriye ay wataan bay noqonaysaa markaana waxa tala kala ka imaanaysa aad iyo cabdidaanta sagana aad baad u khaldantay waxa weeye ceeb weyn ba ku dhacday ila hooyada oo kaleeto walaasha oo kaleeto inta public soo fariistay aad tiraahdo waa ka laan dheereysna oo laan dheeraanahay oo magaraysaa ku faantid waa sheemoy you lose a lot waxa lose garaysay magaraysaa credibility ad lahayd oo hore u lahayd yaad lose garaysay waa ceeb weey aad iyo hadii dibka u dhacay inaad si muwaadinimo sida hadda u hadlay dastuurkaagu uu ku ogol yahay inaad tiraahdo discrimination bal lagu sameeyo xafiiska saa tagay saas arintu dhacday ma ahayn inaad dhaaratid ma ahayn inaad laan dheeraysid ma ahayn inaad magaraysaa hada la ka dhacaan ma ahayn aad iyo marka waxa weeye isku soo duuduub أنا أقول ما شاء الله ما تجاري وإحنا سكاجة تجاري جالس كجرو يعني سكسر سنة وأنا مقرس هذا البدن والسياسة خلت فربدن ما هي من نوعي دي كتجة الدارنا كان بين وحب لابرا إن شاء الله أو رباينا باللابان وتقبلوه كان بين إذا بدأ حوق الدلك الصومالية كتها غيري هذا اللي قاعد بقول إذا بدأ حوق الدلك الصومالية كان بين أن كتها غيري دون إن شاء الله هدو إلهي هذا يان بلابا يا أنا تقبلوه وطن والبقو عالم كان كدسن وحكوفانا عيدا كيس دقيست وطن والبقو ديودا كدسن وحكوفانا عيدا كيس كلا دوبان بكوفانا إيه أوديسو أيو كوفانا ما شاء الله marka annaga hadaan nahay Soomaali dibkaas ay haysto wasiiradii iyo madaxdii dalka iyo hawlaha socdo oo jijiga ku noqo iyo ana ka laan dheeris waxaas waxa weeye niyadda ciidanka naga dilaysa dhageysta niyadda ciidanka naga dilaysa niyadda caruurtanada iyo jiilka soo kacay dilaysa waxa weeye ummadda Soomaaliyeed qabkeedii buu hoos u dhigay inaan qabiil isugu laan dheereno adaa laan gaabay ana laan dheere waa ceeb weeyadiya garaysa waxa laga rabaa muwaadiniinta Soomaaliyeed inaan ciidanka naga xooga dalka Soomaaliyeed inay garab istaagaan siyaasiyiintan waa inaga tagayaan بريه مانع بريه دبي بحيا بريه مانع بريه دبي بحيا لكن كوا النجات تجينين هبين النجات تجينين مالين النجات تجينين مرول بيت النور لمن يدحنت النور تاجن عدوي النجات دفاعي الصومالية كدي كرم معها شخص مدحونا من شخص رئيس الوزراء من شخص وزيره معها قفك صومالية جريت صوماليا كدي كرم واحد صوماليا جريت صوماليا دي بقصة علم كرو وويلا الشير توتها وطو عن كفار نوي وحير بعد ذي شيء يا رح وحارك سويل يرو صومالي يا وحو كنا قنا يا حير إيه هذه يا وقنا دون تهير قويسنة وأنا كسي تجي قطب ودن بين كذا بحاول ويل ير أو الصومالي يا عسكري وحكنا قرية وضبطان دبد لقيت هذا كذا ويل ير الصومالي يا دبد وحكنا قرية عسكري صومالي بقولنا صومالي يا عسكري كمرايكن كها عسكري الصومالي بقولنا عسكري كان نقضي ناس كلين
kumanaanka kuna kumaandooska annagu aan haysano ee Soomaaliyeed ee habeenii maalin dhaawac noo noqonayo cid sheegayso ama cid sawirkooda qaadanaysa ama cid buunbuunayso markiis waa waxyaabaha aan dareemo way campaign-kiisa bilaabay insha Allah tuutaan xiran doonaa waxaan habeenii maalin campaign u gali doonaa si ciidamada Soomaaliyeed ee inoo dhimanaya habeenii maalin aan ku garab istaagno marka hadalkayga intaas soo hayntiga gooday waxaa geerish waxaa ku jira busy baan ahay aad baan idin salaamay dhamaantiin siina share gareeya siina gudbiya gaarsiiya page-ka Soomaaliya ha guuleysato waana guuleysan doonaa insha Allah institution-kana uu dhismi doonaa waxyaabaha hadda socdana wax la xalin doono way dadka cuqaasha ee wax garadkana waxaan leeyahay sidii lagu keen lahaa ama lagu heshiisiin lahaa gabadha ay wiilka la isku keen lagu heshiisiin lahaa in falkeeda la galo oo loo kaba qaato oo gabadha ay wiilkaasi si nabad ah lagu dhameeyo ragga kale gabadha caayana aad baan idin cambaareenaya gabadhu caay male waa hooyadeen waa walaasheen waa wasiiradeeni waan garab taaganahay waan garab istaaganahay haday khalad leedahayna qaladkeeda am garanaysaa ku qaadana hadayna khalad lahayna waxa weeye ma sha Allah marka waxaan idin sheegayaan idin leeyahay Soomaali ha guuleysato Soomaali way guuleysan doontaa labada qodob ka hadlayna hadii aan ka hadlana waa xaqiiq weeye mar rabina hadalka sii badi wasiirada hadii hadalka tir ra'iisul wasaaraha uu bartaa joogay waa big scandal way very scandal arrin aad u xun weeye oo u soo hoytay dawladii aan taageerayay ee nabadina salaamu calaykum wa rahmatullahi